Radio waa raadiyaha kaliya ay raadiyayaasha kala dhageystaan. Hamogaanin habeen kasta oo axada ka dhageysta 88.9 FM. marka awdal state waxa weey maamul goboleed gaarkiisa u taagan oo aan hoos tagin maamul goboleed kale laakiin systemka nidaamka federaaliga ee Soomaaliyeed u horseeday ummadda Soomaaliyeed inay isku timaado ay wax wada qabsato gobol walina iskii uu noloshiisa iyo makraansa daryeelkiisa uu soo dhiso deedna guud ahaan Soomaaliya isku timaado wax la wada qabsado la wada abuurto dawlad federaali ah oo ku salaysan cadaaladda oo u adeegta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtada haddii aan soo koobo ujeedooyinka loo abuuray awdal state way tiro badan yihiin laakiin waxoogay ayaan walaalayaal ka taabanaya kow number 1 in la mideeyo fikirka muruqa iyo maalka dadka awdal state lagana digtoonaado tafaraaruqa kala qaybsanaanta iyo adeegidda dana shisheeye number 2 in dadka awdal state ayagu ismaamulaan fikirkooda saliimka ahna ku meel maraan number 3 in dadka awdal state ku filaadaan sugidda nabadgelyada gudaha iyo dibadda ee dhulka ay degan yihiin ama ku nool yihiin in dadka awdal state hantaan dhulkooda manaafacaadsadaan khayraadka kala duwan ee arligooda hadday noqoto badda cirka iyo dhulkaba in ismaamul goboleedka awdal state wada shaqayn iyo iskaashi la yeesho dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed number 5 in ismaamul goboleedka awdal state wada shaqayn iyo iskaashi la yeesho cid kasta oo danaynaysa nabadda iyo wada jirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed walaalayaal awdal state waxay diyaar u tahay inay la samayso daris wanaag iyo istixgelin awdal state kula noolaato wadamada iyo bulshada Soomaaliyeed ee dariska la ah number 7 in la dhiso dekado garoomo diyaaradeed jidad iyo warshado koronto si kor loogu qaado nolosha bulshada loona dhiirigeliyo bacaamishtarka sidaynu wada ogsoonahay walaalayaal 20 sano u dambeeyay iyo xataa 20 sano ka horeeyay gobolka awdal runtii ma helin xaq cadaalad ah oo lagu hormariyo adeegga bulshada ee laga maarmaanka marka taa waxay u taagan tahay ummadda awdal state waxay leeyihiin dhul aad u ballaaran waxay leeyihiin xeebta aad u ballaaran dhinaca galbeedka waxaan xuduud kala leenahay Ethiopia Djibouti koonfurta Ethiopia dhinaca bariga Soomaalida inteeda kale dhinaca badda Red Sea waxaan xuduud kala leenahay dalka la yiraahdo Yemen haddii aan fiirino khayraadka ku jira dalka gobolka awdal state of Somalia waxaa lagu qiyaasaa ama lagu tilmaamay inuu gobolka ugu khayraadka badan leh gobolka ugu biyaha badan leh waxaynu wada ogsoonahay hadda haddii ay sii jir lahayd dawladdii hore ee Soomaaliyeed waxa jirta in la afkooyay 2 ceel oo shidaal ah oo gaasku aad iyo aad u soo dhawaa haddii dagaaladii sokeeye dalka aan ka dhici lahayn waxa hubaan lahayd awdal maanta in gaas fara badan ay u dhoofin lahayd dibadda isla markaana ay qabtir lahayd Soomaalida iyo mandaqada geeska Afrika intaba waxa kaloo ay diyaar u tahay awdal state in la dhiso bulsho caafimaad qabta oo ku salaysan sinaan iyo cadaalad waxaynu wada ogsoonahay qarankeennii Soomaaliyeed ee wanaagsanaa ee aniga waxay soo baray ee aan jaamacadda soo dhameeyay iyadoo aan lagu lahayn 1 shilling Soomaali aan lagu lahayn jaamacadda soo dhameeyay walaalayaal maanta intaydu second year bay ku jirtaa Carleton University waxay barataan neuroscience waxay maraysaa lacag badan more than $20,000 ba maanta lagu leeyahay the first 2 years ugu horeeyay dhammaystiran marka xaqiiqada marka laga helo qofku wuxuu wax noqon karaa marka dalkiisa iyo dadkiisa ay caafimaad qabaan ay wanaagsan yihiin ay helayaan adeegii saxda ah ee ku salaysnaa cadaaladda sinaanta istixgelinta iyo isxaqdhowrka isjeclaanta iyo walaaltinimada waxay diyaar u tahay awdal state in daryeelka caafimaadka asaasiga ee bulshada laguna baahiyo magaalooyinka tuulooyinka miyiga tayadooda kor loo qaado iyadoo aan la eegaynin dadku meeshay ka yimaadeen haddii aad maanta fiiriso awdal state jaamacadda Camuud
وجامعة ugu horeysay ummadda Soomaaliyeed 20 sano u dambeysay meeshii ugu horeysay jaamacadda ka furo waa Amuud weey hatta jaamacadda Amuud tagto laba jeer baan tagay oo fisid gareeyay Soomaaliya oo dhan jaamacadda way joogtaa Kismaayo in ka yimiday يا إنك لو يعتبروا الشيء ترس لا عمود دمان هالكاس يكون ذا ترى هو جامعة أمة الصومالية عمود ما تورا يعني مركز أول استدنا واحد ديارو تايقف كستو الصومالية إنه سحر وقشق يستو سحر وقلنا ورادو سحر وقبرتو وإيرانية شروع ذا إيو نبتقلية ذا دقانك إيو وحوذا قبسك إيو وذا شقين تأمة إنه كقيب قاطو كليا يا لوغا باهي حتى قفك الرئاو ذا روحو لمدي هاي قفك استو الصومالية ذا يماتا ويسكو حقوق العريان سيدو كان البحنمدو ومنها وحبرشدا إيو يا رغنمدا سيدا أوجد وإن لا أقونصدو إن كانت وحبرشدو تاي مد كمدأ تيرك أمي يمسن إيه هرمرك بالشدة أو درستيت وحين ودكسون والعريان وحيابا بدن باندوفينا وحيابا أمي يمسن يعني أندوفينا أو درهان وحكم ذا كو وأقون توي وحيابا كلو فربنا ويبليين وحصوصار كبيرها يا جرا خيرات كرا يا جرا حولا يا جرا وحوي مينرالز باجرا بيا يا جرا يعني خيرات كياد بوتر بديان وحنا مثلا gobolka awdal hadii umada Soomaaliyeed nabad iyo wanaag loo helo oo dhibaatada iyo mashaakilka dhacay laga dawoobo waxana مثلا awdal state inay ku filantahay khayraadka ku jira umada Soomaaliyeed oo dhan isla markaana la fiil garanayo geeska Afrika iyo caalamka waraaya sidoo kale waxa loo baahan yahay awdal state inay dhiirigeliso maalqabeenka hantiilayda beeralayda iyo xoolalayda inay shaqaaleeyaan ardayda iyo xoogsatada waxaan wada ogsoonahay ardaygu markuu iskoolka dhiganayo waliba gaar ahaan gobolada waqooyiga qofku waxbarasho uu ku jeedaa dhinaca koonfurta waxooga waxaad moodaa qofka isagoo shaqeynaya ayaa waxaan arkaynaa in dad badan jaamacadaha ay dhiganayeen waxaan rabnaa dhaqanka lafteeda inaan wax ka bedelo oo ardayga isagoo wax baranaya isla markaana inuu wax la soo baxo oo uu caawiyo magaranaysa faamigii iyo noloshiisii iyo dalkii labadaba sidoo kale waxaan ogsoonahay walaalayaal dhinaca saxaafadda awdal state saxaafadda waxay u soo jeedinaysaa saxaafaddu waxay leedahay xeerar bay leedahay lagu dhaqo saxaafaddu inay ixtiraamto xeerarka u dejisan dhibaato aad u weyn baa naga haysataa saxaafadda haddaanu nahay shacabka reer awdal shacabka reer awdal iyo Soomaalida inteeda kaleba waxay u baahan yihiin in wax kasta oo bulshada ku soo kordha any event in loo gudbiyo oo si sahlan dadkii ay u helaan si ay u helaan communication wanaagsan oo ay aqoon u kororsadaan oo xirfad u kororsadaan oo khibrad u kororsadaan oo waxay aaminsan yihiin ay ku sii adkaysan karaan marka saxaafaddu waxaad moodaa in dib badan ay ka jirto oo monopoly maaragtay dadka ay ku haystaan suxufiga shaqeynaya haddaanu gudbin wixii uu qabtay haddaanu gudbin wixii uu aaminsanaa haddaanu ku faraxsanayn shaqada uu qabanayo ee suxufi noqon maayo waxaana laga maarmaan markaad ku shaqeynaysa cadaaladda iyo shaqada qabanayso xeer hoosaadkeedii markaad dabaqayso wax isoo taagi kara walaalayaal ma jiraan waa inaynu ku kalsoonaanaa innaga jiritaankeenna iyo qawaaniinta jirta ee caalamka iyo kuwa gudahaba intaba waynu ilaalino markaa saxaafadda waxaan soo jeedinayaa inay ku kalsoonaadaan oo shaqadooda u fushaan si sharciga waafaqsan aan soo jeedinaa walaal saxaafadda meel kastay joogaan alright qodobkayga lixiyo tobnaad sida horeba looga dhawaajiyo gobolka awdal khayraad fara badan buu leeyahay laakiin boob iyo duulaan baa hadda loogu jiraa waxaa laga yaabaa hal dhagax oo laga yaabo inuu $250 million inuu yahay in qofku uu ku iibiyo waxaan $10 qandayn waa khasaare aad u weyn weeye walaalayaal waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto dowladda federaalka aqoon-yahanada Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed in wax allaala wixii heshiisa any agreements oo ka dhacay gobolada waqooyiga Soomaaliya haddii aanay awdal state dhinac ka ahayn oo aanay saxiixin or these agreements will be non-valid ma noqonayaan wax shaqeynaya ma noqonayaan wax sharci waafaqsan ummadda Soomaaliyeed taasaan u sheegaynaa walaalayaal
هذه أنتي بقول نوضوا على يا 1884 هالشيء كلا كلا بريتش وحلقوا ساحة سانتا حولها لقت شيء أيها ساحة سانتا سي وحي دركيد وحوها لحدا سنتيمتر بوها دركيد سانتا سي بل عيب نوحوها 4 سنتيمتر مركا وحال لكاني 1974 أيها وحال لكاني سومالي ناشنال أكاديميك أيها لديكي سيدتك أقويانيدا أرتيدا جامعة كوتشيرا تدك كلاية جعل دقنك إيو سويالك سوغا فايدايستان موسيمكي سومالي أي ورالي أقولي جرتي مركا شعب كرياو دا تاريخ دا دير أي ليهين أو آمد آن لإلاوي كرين تاسنا وحان رجينا إنay sabab noqdeen dhalinyaradii iyo hooyooyinkii reer awdal inay dib u soo nooleeyeen taariikhdii reer awdal maanta oo ay banaanka soo dhigeen aqoontoodii xadaaradoodii waxaan ku soo gabagabaynaa walaalayaal anoo aad iyo aad idinku mahadnaqaya sida qiimaha iyo qaaya badan ee uga soo qayb gasheen xafladan sidaad noo soo dhaweyseen sidaad heesaha fiican noo qaateen sida soomaalinimada leh wadaninimada leh ee aad noo soo dhaweyseen xaqiiqatan anagoo marka horeba wadaninahayn haddana aadna sii dardargeliseen xaqiiqada marka laga hadlo aad baan ugu faraxsanahay waan inugu soo dhaweynayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa dastuurka qabyada constitutionka qodobkiisa 11 farqadiisa 2B waxay tilmaamaysaa waxaa state noqon kara walaalayaal taas waxa weeye waa professionalkayga weeyey oo arday sharciyada bartay baan ahaa halkaa khatar badan baa ku jirta cadaalad darro badan baa ku jirta qodobka waxaa ku jiraysa ummadda soomaaliyeed inay kusii kala fogaato halkaa ku jirta waxaan dowladda federaalka aan ka codsanaya waxaan guddiga committeega dastuurka qabyada aan wargelinaya waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaya waxaan aqoon-yahanada aan wargelinaya qodobkaasi inuu khatar ku yahay midnimadii ummadda soomaaliyeed iyo xal u raadinta ummadda soomaaliyeed qodobkaasi waxa uu sheegaya walaalayaal waxaa state noqon kara 2 gobol iyo wixii ka badan ayaa waxay noqon karaa state ama 2 gobol ama 3 gobol ama wixii ka badan marka taasi Soomaaliya 18 gobol ayaa u qaybsan walaalayaal gobol walba maanta wuxuu diyaar u yahay inuu isagu aan konti ka tolantahay uu iskii noloshiisa u saabo cid kasta oo la timaada nidaam state awdal state is the first state wali ma dhicin state kale oo Soomaaliyeed loogu yeero something state waxay iman doontaa awdal state Puntland state Mareeg state Somaliland state Banaadir state iyo Galmudug state iyo gruubyada kale hadda magacooda halkaan ku soo koobi karin awdal state waa state-kii ugu horeeyay weeye ee la yimaada state xeerka federaaliga ama habka United Nations charterkeeda ku taala systemka Soomaaliya dib la isku soo qoray federalismka ayaa wuxuu sheegayaa in states wax walba state noqon doonaan state marka la kala horeysiin doono marka qodobka waxaan ka codsanaynaa in dib loo eego oo la ilaaliyo xuquuqda carruurta hooyooyinka dadka waaweyn gobolka beesha dadka disability-ga in dib loogu noqdo oo laga baxo more than 2 states or 3 states ee la tixgeliyo gobolka aqoontiisii maxay tahay ma aqoontiisii ma isku filan tahay cid kale wax ma tari karaa dhaqaalihiisii muxuu yahay isagu ma isbixin karaa soomaalida muxuu kusoo kordhin karaa marka waxaan aad iyo aad u soo dadaalaya maadaama Soomaaliya ay dhib badan timiday dadkii walaalaha ee wada noolaa ay dhib badan soo kala dhex martay shaki badan uu jiro in gobol kale la hoos keeno haddana qaraxiisi uu noqon doonaa xal ma marka xalka kama dambeyntii waxay tahay in gobol walba loo ixtiraamo 17 gobol isagu inuu la yimaado maamul goboleed isaga u gaar ah oo aan sharti ku xidhnayn inuu ka shaqeeyo midnimada iyo isku imaashaha ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad bad walaalayaal u mahadsantihiin waxaan ilaahay Soomaaliya ha noolaato awdal sida ha noolaato idinku noolaada. Salaam alaykum.